sidaan ognahay dhalinta zamankani waxay aad iyo aad u isticmaalaan WhatsApp-ka maalin iyo habeenba. qaar ka mid ah ayaa dareema indha xanuun xitaa haddii leerka taleefankooda ay iska gaabiyaan. haddaba maanta waxaan ku tusayaa qaab aad ugu dhigi kartid WhatsApp-kaaga shaashadiisa mid mugdi ah. daawasho wanaagsan. السلام عليكم magacaygu waa Maxamed Maxamuud kusoo dhawaada caaqiltay hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkani aadna danaynaysid teknoolajiyada iyo editingka fadlan ha iloobin in aad saartid subscribe gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga marka ugu horeyso waxaad soo update gareynaysaa WhatsApp-kaaga waxaan qaybta hoose ku soo dhigayaa linki aad ka samaysan kartid update kadib waxaad furaysaa WhatsApp-kaaga markaad WhatsApp-ka aad furtid waxaad taabanaysaa saddexda dhibac ee qaybta kore searching dhinaciisa ku taala kadib waxaad dooranaysaa settings kadib waxaad sii dooranaysaa Datis markaad dooratid qaybta ugu sareyso waxaa ku qoran ciwaan ah display kadib waxaad taabanaysaa theme marka waxaa ku furan saddex choice ama saddex option choice-ka koowaad wuxuu ku xiran yahay mobile battery-gaaga duu mobile battery-gaaga uu yahay light oo ku shidaa oo aftiin zaid ah haduu liitana dark oo ayuu kaaga dhigayaa option-ka labaad waxa weeyaan light ka dhigo oo sida aan naqaanay ah midka saddexaadna waxa waay ka dhigo dark hadda anaga waxaan u baahanaa marka inaan ka dhigano dark kadib okay ayaad leedahay sidaas ayuu kugu samaysan yahay haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like saar subscribe na channelka siina share garee muuqaalka mahadsanid